السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalayaal. meeshaan tiktoka waxaa ka socda aran qabiil ah oo wiilal maaragtay saaxiiba ah oo maaragtay qabiilka lacag kaga sameynaya oo maaragtay shiino culay iyo kuwa kaleeta ah oo lee qola walba aniga ila safo waxa ay garaacda game wax la yiraahdo ay ku ciyaarayaan si ay u helaan maaragtay meesha lacag uga sameeyaan. يعني dad waxaa jira masaakiin oo waxba fahmayn baa jira dadkan saaxiib inay yihiin oo aad ka arkaysid dad saaxiib inay yihiin maaragtay markaas qabiil meesha bay qabiil ka kicinayaan waxaasna fidna inay maaragtay meesha keento looma baahna. meesha anigu waxaa jira dad daaroodka yiraahdo daarood ku sheegay inuu yahay muxuu haytadiito ma dhibaanka muxuu haytadiito Yementa. marka kuwaasi de waa taariikhda ma yaqaan waxna ma akhriyaan muxuu haytadiito waxna ma kala garanayaan muxuu haytadiito. marka waxa weeye horta anigu asal ahaan badaaroodka waa baaray iduu galo ma carab baa mise ma aha anoo raadinaya baan baaray. marka waxyaabahan helay waxaa ka mid ahaa inay sheeganayaan dowladaha kan Yamanta iyo Saudi Arabia iyo Masar inay sheeganayaan daarood inuu carab yahay uu yahay sida iyagu ay Soomaalidan daaroodka iyagu ay sheegi jireen buu kana sheegayaa. Soomaalida daaroodka waxay dhigi jireen carab baan nahay reer Haashim baan nahay waa kaasa waxaan galnaa Afrika nabigaan galnaa nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. marka waxa kan waa dowlad saddex dowladood baa lacag ku bixiyay ma hadda shaqsi caadi ah saddex dowladood baa dowladii saddex dowladood oo xafiiska maaragtay ku heritage-ka la yiraahdo maaragtay dadka maaragtay ku saabsan wasiirada ku saabsan qaybta heritage-ka iyo dadku meesha ka yimaadeen asalkoodii iyo maaragtay ay ku leeyihiin raadintooda ku leh baaba waxbarashada tan sameeyay bal yaab kala arkay bal adigu iska daarood isagu inuu carab sheegtee carabtii baa daarood carabtii laftigeedii dowladihii carabta ahaa baa daarood ka sheeganaya ma fahamtay dowladihii carabta ahaa baa leeyihiin daarood waa wiilkaygii leh. marka halkaa waa uga jeedaan muxuu haytadiito buug waxaa jira nin uu qoray baalkii ah muxuu haytadiito Masar ah oo 900 sano qarnigii 900aad uu qoray adiga 200 sano ka bacdi geeridii nabiga qiyaastii buu qoray buuggan uu kuna cadeynayo Sheekh Cabdiraxmaan kan jooga daaroodka ninkaan u naqaano oo halkaa jooga inuu reer Haashim yahay inuu yahay ina aqal ibn Arab Daalib inuu yahay. buug uu qoray baa jira nin Masar ah la qoray waa kaasa buugga waxaa la turjumay maaragtay maxaan ku jeedo qarnigii waxaa la turjumay 1938 the collection of Egyptian mawjada collection of Egyptian Council for the genealogically waxa weeye qaybta heritage-ka waaye imperial heritages from the early written Arab Hashimin of aqaliyiin يعني macnaha qabiilka aqaliyiinta uu ka farcay waa qabiilku wuxuu ka farcay waa qabiil balaaran oo carab oo dhan dega wadamo badan dega weeyaan oo meel kasta dega Afrikada dega xataa wuxuuna ka farcay aqal ibn Abdal taala socdo. buugga ninka qoray waa ka buugga ninka qoray waxaa la yiraahdaa raadi daartay aduguba ibnu Ali al-Masudi waa nin Masr ah period chiefs wuxuu qoray 956 buu qoray taariikhdu markay taariikhda islaamka weeye marka la qoray the book of aqaliyiin buugga magaciisana waxaa la yiraahdaa aqaliyiin waxa weeyaan meesha raadinaysana waxa weeye Supreme Council of the genealogy of the Hashimin waxa weeyaan qayb kamid ah qabiilka Haashiyiinta weeyaan waxa raadinaya meesha tan sheekadan taariikhda raadinaya. marka halkaas waxaad ka arkaysaan waxa macnaha sheekada iska kaashay Supreme waxa weeyaan the highly waxa consult of the genealogical of Hashim Riyadh Saudi Arabia Cairo iyo waxa weeyaan iyo Hadramaut Yemen waaye adiga meelahaas iska kaashay saddexda wadana iska kaashay sheekada tan in la raadiyo sheekhan la yiraahdo Sheekh Cabdiraxmaan Ismaaciil Jabarti aba shaqo iyo waxa lagu bixiyay idinku caabaleedin daarooda carab sheeganaaye daarooda halkan carabta sheeganaysa bal ark jointly collected by the Ministerial of the Culture and Heritage of Government of Yemen and Saudi Arabia waxa raadinaya sheekada tan waxa weeyaan waa Saudi Arabia iyo Yemen waa maadaama ninkan carab badan oo Haashimiin ah baa waxa asal ka yimaadeen maaragtay Saudi Arabia ka yimid oo soo degay
maxay Yemen soo degay Yemen iyo maartay Saudi Arabia waxa ka dhaxeeya de border baa ka dhaxeeya waxa ka dhaxeeya way isku dhagan yihiin waana isku dad ku reer Hashim kuwa badan oo reer Hashimiina degan meesha idinku waxa leediin Soomaaliya carab sheeganaysa bal carabtii baaba sheeganaysa idinku halkaan arkay yaab kala arkay baalkan Sacuudiga baalkan masaariduna de waa masaarid iyo wax qortay weeye oo taariikhdan qoray ninkan qoray marka halkaan sheekadu waxay leedahay macnaha marka iyagu waxay xaqiiqsanayaan bay leeyihiin oo cadeynayna halkaan ku cadeynayna Cabdiraxmaan bin Ismaaciil al-Jabarti also ninka magacaas la yiraahdo oo daarood ku nool ku xabaan Haylaan bay sheeganayaan also known as Darod or Daoud is the man traditionally held the common center of the Somali Darod clan يعني waa ninka maxay daaroodka qabiilka la yiraahdo ee Soomaaliya degan ay sheegtaan weeye qabiilka ay sheegtaan weeye according to early Islamic books buugaag islaamka lagu qoray baa magaciisu ku qoran yahay ninkaasi Hashim reer Hashimi inuu halka degan yahay waa nin u tirsan buu iyaga ahaa say iyagu cadaysanayaan ninkaasi waa noo tirsan yahay iyagii baa sheeganaya halkaasana waa hore baan qornay taariikhdiisa halkaas uu degan yahay Abdurrahman is believed had descended from Aqil ibn Abi Talib يعني waxa weeye wuxuu ka yimid Aqil ibn Abi Talib wiil ku abtirsada halkaas uu ka yimid bay leeyihiin a member of bin Hashim waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay waa qayb ka mid ah waa qabiilka wuxuu yahay waa qabiilkaani wuxuu yahay ninkaani qabiilka bin Hashim weeyay bay ku leeyeen and the uncle of the prophet Muhammad waxa weeyaan waa abide waxa weeyaan Abi Talib wiilkiisii baa dhalay oo Aqil ahaa weeyaan waa maxay nabigeena galeena xariis kurkiisa aatee adeerkiis baa dhalay bay ku leeyihiin the outer such as ibn Hawqal al-Muqaddasi يعني waa meelihii lagu yani dadkii sheegay waa qofkii sheegay waa Ibn Sa'id have confirmed the early presence of Arabian tribes يعني inay waa hor ay yimaadeen qabiilada carabta ah ay yimaadeen dhulka Soomaalida ay yimaadeen iyagoo diinta islaamka faafinaya ninka taariikhdan oo buugan ka qoray waxa la yiraahdaa al-Masudi weeyaan ninka ka qoray wuxuu qoray in specific Arabian families يعني waxa weeyaan qoys carabta ka yimid oo degan yani North Soomaaliya degan qabiilkaas qarnigii wuxuu qoray 900 century book aqiliyum buu ku qoran yahay this book sheds light one of individual Sufi bookgaasina wuxuu ka hadlayaa hal qof buu ka hadlayaa halkaas qof waxa la yiraahdaa Sheikh of the Qadiriyah order call Ismaaciil uu sheekh buu ka hadlayaa la yiraahdo magaciisa Ismaaciil ibn Ibrahim waxa weeyaan al-Jabarti who fathered children one of which was named Abdurrahman يعني book wuxuu ka hadlayaa muxuu haytadiito in sheekh la yiraahdo Ismaaciil Jabarti oo muxuu hayto oo dhalay caruur badan dhalay oo asal isagu Yemeni ahaa reer Hashimiin ah oo muxuu haytadiito oo Qaadiriyo oo Suufi ah يعني qaybta uu ka haysto islaamka waaye uu dhalay caruur badan qaar mid wiil ka midna la yiraahdo Cabdiraxmaan waa Cabdiraxmaan Daarud waaye horta intaasaan ku koobayna halkaan waana sii wadaynaa dadkiina leh Daarud waxa waaye waa madowga ama dhimaanka bahalkii muxuu haytadiito Yemanta ma aha dadka madhibaanka Yemanta lagu sheego madow waxa weeyaan waa dad maaragtay Ethiopian asalkoodu yahay Ethiopia haysan jirtay dad Yemen hadda ka hor dad diinta taqaanana waa baran lahaydeen dadka madowga xoogaa la cunsureeyo degan muxuu haytadiito degan Yemanta degan waa asal Ethiopian weeyaan sheekhana warkiisa waa sii wadaynaa warka kale dhageyso